وإسكال الله هذا ندرسنا نور بمشي سواء كهذا الكرا مركا وهذا واسك هذا البانو لأنه مركا كوان حسورة قليل وواحد معقول هين وواحد وحبة كجرين waxaanu yeeli karno iyo waxaanu ogol lahayna ma aha inay aamusaan oo ay ma garanaysaa waala gacan dhowra tahay oo dana iyaga kuwooda u gaar ah ay boqol sano fadeexad aan ka go'in Puntland iyo Soomaaliya u soo hoyiyaan waxaanu ku hadlaynaa inta maqan iyo inta joogtaba shacabka Puntland dadweynaha codkiisa iyo karaamadiisa iyo fakarkiisa baanu awal wakiil ka ahayn haddeerna isagii baanu matalaynaa waxaa jira dawladda runta ahi waa shacabka iyo dhaqanka ninkii shaqeeyaana waa shaqaale waxaa dalka iyo dadka wax laga weydiinayaa nimaan sharaf iyo karaamo iyo dadka danqashadiisa wax laga weydiin karaa nimaan mushahar yar iyo wax kale oo meel loogu xeebanayo iyo gabaygi Cismaan Yuusuf bay ku jirtay nin mushahare ah haynaya waa miskiin dhaba hadal haduu qiimo leeyahay xadiis iyo sharci iyo aayad quraan ah iyo xigmad Soomaaliyeed ba ugaas Umar ugaas geelle ba dhameeyay waxaan ku darayaa dalkan Puntland la yiraahdo waxa awal la dhisay ilaahay faligi ismay ahaayeen haatana waxa si runa wax looga weydiinayaa waa salaadiinta waayo ninka shaqaalaha ah waa tagaya isimku haduu dhintana ilmihiisa dhaxla intuu nool yahayna lama bedelo laakiin nin warqad yar oo saxiixa ku yimi si fudud buu isaga tagi karaa geerida waa loo siman yahay laakiin masabkan ka hadlaya Puntland Soomaaliya waxaanu leenahay sharafteeda iyo wanaageeda iyo wada jirkeeda iyo nabadgelyadeeda iyo diinteeda iyo qiyaadadeeda iyo xuduudaheeda bay ka shaqaynaysaa iyadayna raali ku tahay iyadayna ku midaysan tahay wax la kala googooyo oo Soomaaliya ahna raalina kama nihin mana aqbali doono waxaanu leenahay dad kale madax baanu nahay oo Puntland baanu madax ka nahay karaamada shacabka iyo dhaqanka bay meesha ku joogaan hadday helaan iyagu wada kale oo uga fiican waa laga maarmaya kuwa la mid ah jooga laga bayaabo inay ka si fiicnaadaan waxaanu yeeli karno iyo waxaanu ogol lahayna ma aha inay aamusaan oo ay ma garanaysaa waala gacan dhowra tahay oo dana iyaga kuwooda u gaar ah ay boqol sano fadeexad aan ka go'in Puntland iyo Soomaaliya u soo hoyiyaan waxaanu aqbali doono iyo waxaanu aqbalayno midna ma aha warcad baa laga rabaa hadday ka maarmeen Puntlandna ha cadaysteen oo istiqaalaha geeyeen haddii ay haatan rajo ka qabaanna laba faras la isku fuulo yuhuudi iyo Soomaaliya iyo Puntland uma dhaxayn karaan waa inay mid raacaan way cod dheer baanu ku leenahay iyo mid gaabanba ma aha waxaanu qarsanayno waxaanu qarinayno ma aha waxaanu ka haraynana ma aha waxaanu iska nirina ma aha shacab weynahana waxaanu leenahay wixii idin roon garta wixii idin roon aakhiriya adduunba garta Soomaaliya waxay wax ku tahay midnimo waxay wax ku tahay gaala nacayb waxay wax ku tahay boqolkiiba boqol inay muslim tahay shahaadato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadweynaha Soomaaliyeed ee maanta barnaamijka yaga aan arki doona anagoo ah isimada Puntland intayada hadda garow joogta maanta halkaan aanu fadhinaa waxaan u fadhinaa qadiyadaha waxyaalaha cusub oo ka soo kordhay dalka Soomaaliya inaanu ereyga ka niraahno baanu u fadhinaa hadda wax kale ma aha marka hore waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ha joogtee
waxaan maqlaynay yuhuud baa ku talisay in Soomaali la googooyo oo qurba meel loo jaro yuhuud hadee waanu nagamana badna hadaanu darisnahayna way iska celin lahayn oo isma naqaane dhagaxaanu iska maqalay way iska celin lahayn hadaanu darisnahay nin walba meeshiisa waa ka hadli karaa marka waxooda waa iska hadal baanu leenahay marka koowaad marka labaad ummadda Soomaaliyeed oo muslimka boqolkiiba waxaan u sheegaynaa walan tardaa anka al-yahuud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwa al-huda wala in ittaba'ta ahwaahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idhan la min adh-dhalimin yuhuud iyo nasaro ka noqon mayaan raali oo ururadooda iyo diinahooda inaad ku labantid ma ogolaanayaan jeer ay ogaadaan inaad muxuu ahaa miladooda diintooda inaad raacdaba aayadu leedahay sida ismada u sheegeen ugaaska iyo suldaanku u sheegeen anaga ku hadlayna codka ismada Puntland intayada joogto magaalo madaxda Puntland Garowe waxaan halkan rabnaa inaan fikirkayaga iyo mabda aanu ka aaminsanahay xaaladaha soo kordhayna halka ka cadayno marka koowaad waxaan cambaaraynaynaa oo si dheer oo cod dheer ku cambaaraynaynaa oo diidanahay oo ka soo horjeednaa faragelinta maamulka yuhuudda oo iyada aan la aqoonsanayn oo xaydaanka ku jirta xiran gardarrada iyo gabadfalka badan adduunka islaamka ka geystay inay faragelin ku sameeyaan Soomaaliya oo gobollo kamid ay yiraahdaan waxaanu ka dhisaynaa dawlad gooniya baanu diidanahay waa ka soo horjeednaa waa cambaaraynayna annagoo ogeysiinayna dhammaan beesha caalamka dawladaha carabta jaamacadda islaamka midowga Afrika iyo maxaan ku raahday maamul goboleedka igadba waxaanu cod dheer ku leenahay waa wax xaraana waa waxaan suuro gelin waa waxaan macquul ahayn waa waxaan waxba ka jirin Soomaaliya waa la isku dayay dhulkeeda isticmaar baa isku dayay hadda ka hor guul darro ka qaaday kuwa iyaga ka xoog weyn baa guul darro ka qaaday oo subax iyagoo kabahooda kabalaan kaga tagay ummadda Soomaaliyeed la wadaagno dareenka ay qabaan oo maalmahan basharmantooda socotay dalkii in la rabo in la kala jaro ummadii in la rabo in la kala geeyo dhibaatooyinkii hore ay qabeen kuwa kale oo ka xoog badan ayna ku soo wajahan yihiin dalkeena Soomaaliya waa dal yar oo kooban dadkeenuna waa dad yar oo kooban waa dad isku mid ah walaalo ah ehel ah islaam ah qaraabo ah wax walba oo ummad wadaagto wada wadaaga oo hal ah oo aan laba ahayn waxaynu rabnaa dadkeenu inay iskaashadaan waanu dawlad xoog la ahaano oo aanu ognahay dhibaatooyinka nagu soo wajahan ma ahayn sidaad moodeen waxaan nahay dawlad awood leh waxaan nahay dad awood leh waxaan nahay dad diintooda iyo dalkooda difaacan kara saasaan nahay dawladda idinka waaweyn oo idinka xoog badan baa hadda kor intay ku soo duuleen faramaraan kaga baxay oo khayr ka heli waayay haddaad istiraadeen xogaa way laalaadaan yuhuudda sidaasaan leenahay walaalaheenna reer Somaliland waxaa tihiin niman dad Soomaaliyeed waxaa tihiin dad aan jecelnahay ummadda Soomaaliyeed ba ka mid tihiin islaamnimada iyo hormuudka iyo wanaagga laydinku yaqaano maanta inaad calan yuhuudeed qaadataan ama ay yuhuud wax moodaan arrin wanaagsan maahan meesha laydinka filayana maahan yuhuud qori dab layla wareegaysa waa la yaqaana meesha istaagtada waxa ay raadinaysa iyo waxa ay doonaysa waa inay dab ku shido dalal badan oo ay ishayaan iyo wadamo badan oo ay maarta col yihiin mar allaala markay maqlaan yuhuud baa carada soo gashay dagaal iyo dhib iyo colaad noo soo wareejinaya adeegga deposit ee bangiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeegga sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bangiga Salaam haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn garaac xidig 886
xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees sidoo kale si aad ula baxday lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta xidig binka akoonkaaga waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxayna ku wareejsan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan